gudoomiyaha xisbiga Ucud Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa ka hadlay safar uu ku tagi lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed magaalada Kismaayo. Madaxweynaha uu qorsheynayay inuu ka qayb galo caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Gudoomiyaha waxa uu sheegay inuu madaxweynihii hore arrintaasi ka tacsideeynayo. aadna ka tacsideynaya madaxweynihii hore xamar Sheekh Shariif waxa loo diiday inuu Kismaayo tago. waxaan leeyahay Sheekh Shariif aduu naftaada calaama leh iyaga isku geystay inay food siiyaan inay yar oo argoosia iyo isku geystay. marka waxaan leenahay waa aragtaan qofkii iska dhiiba baawarkiisa waxa ku dhacay waa aragtaan wax ku qaata baan leeyahay gowlaha dalkana aad baa loo soo galay waxayna soo galay wala ilaa nolol iyo nabadii nolol oo wax kale aan ka shaqeyn in dhalinyarteena la dhex galo calaamaanta loo dhiibo laynagu kiciyaa weyn xamarna gurmad bay nooga baahantay haddii la yidhaahdo tan markaynu adkaysano waanu u dhisi doonaa insha allahu tacaala dowlad wanaagsan oo walaalo noqono oo laba dowlad isbarbeelaan noqono u dhisi doonaa doorashada soo socota insha allahu tacaala waxaasoo hawl baa inoo yaaleen dee ka baxa caare iyo ceelaf weyn ka baxa intaa la samey haddii intaa dhammayn ka weyno ma wax weyn qaban karana. Cabdisalaan Axmed Cawad, Cabdi Jermani, wararka Sahan TV, Hargeysa.